ma kula tahay Soomaaliya inay ka badbaaday qatar weyn oo haddii ay ku dhaqaaqdo ay sabab u noqon karaysa qayb ka mid ah madax banaanida dalka inay saameyn ku yeelato waxa jira casharro iyo taariikh soo jireen oo maanta laga baran karo caalamka talaabooyin la qaaday oo halis keeni kara aqoonyahanka Soomaalida dadka amniga ka faallooday iyo siyaasadda ayaa durbaba bilaabay doodda Soomaaliya ay hadda doonaysa caalamka inay ka iibiyaan iyagoo warbixino dhaadheer iyo qoraallo cilmiga ku qoraya wargeysyada waaweyn ee adduunka maxay tahay halista dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka badbaaday isdhuldhigga Etoobiyana ma waxay noqon karaysaa dabin kale oo Soomaaliya lagu dabo haddii aqoonyahanka iyo diblomaasiyiinta hadda ka shaqaynaya kiiskaasi ee malafkaasi gacanta ku hayaanay ka fikirin maxay tahay talooyinka la siinayo madaxda sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya barnaamijkan caawa qaybta hore waxaan rabaa inaan idinla wadaago qatarta ku gadaaman haddii Soomaaliya ay qaadato heshiis Itoobiya ay la gali karayso taasi oo ay ku doodayaan aqoonyahanka Soomaalida qaarkood sidaad ula jeedaan ciwaanka halkan ka muuqanaya waxa uu ku saabsan yahay dhibaatooyin waaweyn oo laga dhaxlay heshiisyo wadamo adduunka ka tirsan ay la galeen talal kale kuwaasi oo hadda wali ka qoomamaynaya boqolaal sano kadib dhibaatooyinka heshiisyadii la galay wadamadaasi iyo madax banaanidooda ay ku yeesheen sidaad la socoteenba dalka Cuba waxa uu Mareykanka la galay heshiis la xiriira jasiiradda Guantanamo Bay laakiin arrintaasi waxay dhaxal siisay dalka Cuba dhibaatooyin xoog leh maqaalka halkan ka muuqanaya waxa qoray ku-xigeenkii hore ee agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Ismaaciil Daahir waxa uu tusaale u soo qaatay halista Soomaaliya ay muhiim u tahay xilligan inay ka badbaado laakiin haddii madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ay si dhow arrintan u fududeystaan ay suuragal tahay inay ku dhici karaan dabinno horay Cuba iyo sidoo kale Shiinuhu ay uga dhaceen qaarkoodna wali ay la hardamayaan sida ay uga badbaadi lahaayeen Shiinahana boqolaal sano kadib ay ku qaadatay in qaybo ka mid ah dhulkiisa uu kareeyo uu dib u soo ceshto arrimahan oo kale waxa ku dhacay dalka Yemen oo ilaa iyo hadda dhul ay kireysteen dalka Sacuudiga raacay oo qariidadii dalkaasi wax badan ka bedelay haddaba ciwaanka doodiisa waxa uu ku leeyahay Soomaaliya waxa ay wajahi karaysaa caqabado la mid ah kii Guantanamo ay Cuba qabsaday haddii aanay si weyn uga fiirsan talaabooyinka dhinaca Itoobiya loo qaadayo waxa uu soo hadal qaaday markii dalka Cuba uu ka kireeyo Guantanamo Bay dalka Mareykanka laakiin isku dayo badan iyo dadaal Cubaanku ay bixiyeen aanay suuragal u noqon in jasiiradaasi ay soo ceshtaan ilaa iyo haddana ay arrintaasi ku dhibaataysan yihiin isku dayo waaweyn oo caalamka ka dhacay ayaan lagu guulaysan Cubana arrintaasi waxay dhaxal siisay in dalka Mareykanka nacayb iyo colaad badan ay u qaadaan Hong Kong waa meel kale oo dalka Shiinuhu uu ka gareeyo dalka Britain laakiin waxa dhacday boqolaal sano kadib inay ku qaadatay Shiinaha iyo awoodiisa oo dib u soo kacday in halkaasi uu dib u soo ceshto Soomaaliya arrintan waxay ka baran karaysaa buu yiri qatarro waaweyn sida uu ku qoray wargeyska Modern Diplomacy warbixin dheer oo dhinacyo badan taabanaysa agaasima ku-xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Ismaaciil Daahir waxa uu istusay taariikhda Itoobiya damaca ay raadinayso iyo waliba isdhuldhigga hadda inay tahay mid kale oo halistiisa leh waxa uu yiri haddii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dib u raacdo taariikhaha arrintan wax badan ayaa laga baran karaa maqaalkiisa waxa uu isku weydiiyay su'aal yaab leh oo ku yiri maxay Itoobiya u raadinaysaa inay bad Soomaaliya ka hesho oo laga kireeyo waxa uu yiri haddii Itoobiya sida la og yahay dalkaasi uu yahay mid dhaqaalihiisa uu kubcayo dadkiisana ay ballaaranayaan bad la'aanta haysata waxa ay ku tahay caqabad weyn oo haysata haddii maalin Soomaaliya ay lugaha la soo gashana waxa adkaan doonta halkaasi in dib looga celiyo dhibaatooyin badan ayaa dhacaya ayuu yiri caqabado badanna waa laga kulmi doonaa Itoobiya waxay halkaasi ka sameyn doontaa buu yiri saldhig ballaaran oo ciidamadeedu ay isticmaalayaan haddiiba kaabayaal dhaqaale ay dhisto oo Itoobiya maalgashi ay samayso arrintani waxay leedahay halis weyn ayuu yiri waana mid loo baahan yahay diblomaasiyad ahaan iyo waliba dhaqaale ahaan iyo fikir ahaanba dawladda federaalka ee Soomaaliya inay aad uga fikirto arrintan waxa uu dhinaca kale soo qaaday
haddii dowladda federaalka ee Soomaaliya Itoobiya si ay bad uga kareysay dekad waxay halis ku noqonaysaa buu yiri madax banaanida dalka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Itoobiya waxay kala qaybin doontaa buu yiri shacabka iyo dhulka Soomaalida tanina waxay adkaan doontaa in dib loo soo celiyo waxa uu yiri heshiisyada la galay ee taariikhaha la soo maray ayaa maanta Soomaaliya tusaalooyin uga filan waxa uu si gaar ah u soo qaatay Hancock iyo sidoo kale Cuba dhulka ay kareeyeen Guantanamo Shiinaha iyo waliba Jamhuuriyadda Cuba ay kareeyeen haddaba marka aad fiiriso maqaalkan waxa uu ku soo aadayaa xilli xasaasi ah oo loo madlan yahay bisha Febraayo ee soo socota in dhinacyada Soomaaliya iyo Itoobiya guddiyo farsamo oo ay direen ay geeyaan magaalada Ankara kuwaasi oo ka wada hadli doona sida heshiisyadooda ay u hormarin lahaayeen Itoobiya waxay Soomaaliya ku dooday in haddii badda ay soo gaarayso qaab dhaqaale ay ku soo gaarayso laakiin marka la fiiriyo maqaalkan waxa fasiraad u baahan Itoobiya waxa ay doonayso ama nooca ganacsi oo ay Soomaaliya ku iman karayso aqoonyahanka Soomaalida qaarkood ayaa haddaba bilaabay doodo culus oo ay ku soo qaadeen dhibaatooyin ka dhacay caalamka wadamo laga kareeyay ay dhaxalsiiyeen wadamadii wax ka kareeyay Itoobiya oo taariikhahaasi darastay wax badanna faham buuxa ka haysata ma kula tahay haddii Soomaaliya ay dabinkaas oo kale ku dhacdo in si fudud jiilasha soo socda xataa ay uga fikiri karaan dooda Ismaaciil Daahir ku xigeenkii hore ee agaasimaha NISA oo miiska soo saarana marka la fiiriyo mangal ahaan maxay kula muuqanaysaa qaybta hoose ee commentiga aragtidaada inoogu qor hana hilmaami YouTube-kana subscribe inaad tiraahdaan Soomaaliya ma la joogaa xilliga ay ka fiirsan lahayd tallaabo kasta oo dhinaca Itoobiya loo qaadayo damaca Itoobiyana waxa uu ku salaysan yahay kii Mareykanka ee jasiiradda Guantanamo Bay iyo kii Britain ee Cuba mase kii dowladda Sacuudi Carabiya ay labada gobol uga kareysatay dalka Yemen ee aan dib loo arag dhaqaalaha Itoobiya ay bixin karaysana ilaa intee ayuu sii socon doonaa haddii se ay kaabayaal dhaqaale sida wadooyin iyo meelo waaweyn ee u dhisaan goobaha laga kareeyay muqlatahay Itoobiya si fudud arrintan inay uga laaban karayso